daawadaha qiimiga badano waa mar kale IM252 sida aan wada ogsoonahay taleefanada iPhone-nada waxay dhinacyada ku leeyihiin 4 batan laga damiyo ama laga daaro, batan laga dheereeyo codka, mid laga gaabiyo iyo mid kale oo marka aad telefoonka silent ama cod xirnaan aad saarayso iyo marka aad ka qaadayso loogu talagalay. laakiin waxaan rabaa inaan kugu sheego muuqaalkan in taleefanada iPhone-nada ay leeyihiin batan kale oo qarsoon oonan ahayn kuwa aan haddeer kuu sheegay ee dhinacyada ku yaala ee inta badan taleefanada ay ka wada siman yihiin. waxaa laga yaabaa batanka marka aan ku tusiyo inay la yaab ama mucjiso kula noqoto, sida aniga igu dhacday oo kale iyo sida dadka adduunka ku dhacday oo kale markii ay shirkadda Apple shaacisay in taleefanada iPhone-nada ay kusoo dhex qarisay batan aysan dadku intooda badan ogeysiin marka ay taleefanada soo saaraysay. muuqaalka qaybtiisa dambe ee nuxurka aan uga hadli doono ayaan faahfaahin dheeriya kugu siinayaa. isu soo laabadkeena kadib. sida aan muuqaalka hordhiciisa kugu soo sheegay, taleefanada iPhone-ka waxaa ku qarsoon batan aan ahayn kuwa muuqda ee geesaha ku yaala. balan ku tusiyo meesha uu batanka kaga yaalo. waa dhabarkan dambe ee iPhone-ka. dhabarkan dambe aad u jeedo. waa batan aad taaban karto, laakiin ma arki kartid sababtoo ah gudaha telefoonka ayuu ku samaysan yahay. batanka halkan ku qarsoon ee aan kuu sheegay laba sib waad uga faa'iideysan kartaa. inaad 2 jeer taabato ama inaad 3 jeer taabato. markaad 3 jeer taabato, hawl gaar ayaad u samaysan kartaa inuu kuu qabto. markaad 2 jeer taabatana, waxaad u samaysan kartaa hawl kale oo gaara inuu kuu qabto. tusaale ahaan, anigoo kale 2 jeer marka aan taabto, screenshot ayuu ii qaadayaa. marka aan 3 jeer taabtana, codka ayuu ii xirayaa. haddii aan ku celiyana, codka ayuu ii furayaa. sidaa oo kale ayaad ugu samaysan kartaa 3 taabashada iyo 2 mar taabashada hawl gaara uu iPhone-kaaga kuu qabto. sida uga faa'iideysan kartaa? balan gudaha telefoonka imaano. ugu horeyn waxaad soo gashaa settings, kadibna hoos u soco ilaa aad ka aragto meesha ay ku qoran tahay accessibility. marka aad taabato, wax yar kale oo dheeri ayaad soconaysaa ilaa aad ka aragto meesha ay ku qoran tahay touch. halkaa marka aad taabato ayaad qaybta ugu hooseysa tegaysaa meesha ay ku qoran tahay back tab. markaad back tab taabato, labadan qayb ayuu kuu keenayaa oo ah double tab iyo triple tab. double tab waa meesha aad kaga samaysan karto ama aad kaga saxan karto marka aad dhabarka dambe ee iPhone-kaaga 2 jeer taabato in uu hawl gaara kuu qabto. waxaad arki kartaa marka aad double tab taabato, howlaha meeshan ku yaala ama kaaga muuqda oo dhan waad ka qabsan kartaa. tusaale ahaan, in aad tagto qaybta applicationadii ugu dambeeyay aad adeegsatay ee loo yaqaano app switcher-ka, inaad control center-ka aad soo furato, inaad application-ka inta ka baxdo aad qaybta applicationada ee home-ka tagto, inaad lock screen samayso oo aad shaashadda xirato, inaad mute garayso telefoonka oo aad silent saarto, haddii uu silent saaran yahayna aad ka qaado, inaad qaybta notification-ka ee ogeysiisyada aad soo furato, inaad qaybta search-ka ee wax lagu qoro kadibna laga raadiyo applicationada aad soo furato, inaad screenshot ka qaado. waana midda aan kuu sheegay inaan haddeer aniga double tabka ku isticmaalo. tusaale ahaan, haddeer marka waxaan ku dhaafaynaa screenshot. haddii aad hoos u socotana, howlahan kale oo badan ayuu kuu qaban karayaa, oo ay ka mid tahay inaad codka dheeraysato iyo inaad gaabsato iyo waxyaabo kale oo dheeriya. haddii aad tusaale ahaan double tabka aad saarato screenshot, balan ku tusiyo haddeer marka aan telefoonka dhabarka dambe 2 mar sidaa u taabto, waxaad u jeedaa inuu ii qaadayo screenshot. mar kale ayaan ku celinayaa, waa kaa screenshot-ka ii qaaday. tani waxay kaa caawimaysaa marka aad telefoonkaaga hal gacan ku hayso inaad screenshot qaadi karto. waayahay, dib aan u laabano. halkan triple tab ah marka aad taabato, isla howlihii hadda ayuu kuu keenayaa.
waxaad samayn kartaa inaad mid ka mida doorato tusaale ahaan haddeer waxaan dooranayaa midka ah mute oo ah inuu telefoonka silent ii saaro anigoo telefoonka adeegsanaya oo hal gacan ku haya ayaan u baahday inaan degdeg silent u saaro ama ka qaado keliya dhabarka dambe ayaan 3 jeer taabanaya halkii aan markii hore taabanayay 2 jeer 1 2 3 waad u jeedaa silent mode off ayuu ka dhigay oo hadda silent ima saarna haddii aan ku celiyo 3 jeer taabto 1 2 3 waad u jeedaa silent ayuu ii saaray ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan kuu sheego in iPhone kasta uusan lahayn arintan aan haddeer kuu soo bandhigay keliya haddii aad leedahay iPhone 8 ama wixii ka dambeeyay sida iPhone 10 iyo wixii la mida iPhone 11 iyo magacyadiisa inta wadata iPhone 12 iyo inta la jaalka ah maahe iPhone 8 ka wixii ka horeeyay malahan qaybtan aan haddeer kuu sheegay oo ah button inuu ku qarsoon yahay iPhone-ka haddii aad leedahay iPhone 8 wixii ka horeeyay sida iPhone 7 iPhone 6 iPhone 5 waan ka xumahay qaybtan backtab-ka ma arki doontid sababtoo ah taleefanada iPhone 8 ka iyo wixii ka dambeeyay kaliya ay Apple ku soo samaysay waxa kale oo muhiim ah inaan kuu sheego qasab ma aha marka aad laba mar taabato dhabarka dambe ee iPhone-ka inuu screenshot kuu qaado waxyaabo kale oo dheeri ayaad ka samaysan kartaa ama aad ku bedelan kartaa sida inaad shaashada xirato inaad codka dheerayso inaad gaabiso iyo wixii la mid ah waxyaabaha aan kuu sheegay mid kamid ayaad dooranaysaa kadibna waad tijaabinaysaa 3 taab ama 3 mar marka aad taabatana waa sida oo kale balan ku weydiiyay arintan hore ma u ogeyd oo ma leedahay iPhone 8 iyo wixii ka dambeeyay sidee kula muuqataa la yaab ma kula noqotay in iPhone-kaaga qaybta dambe uu button ku qarsoon yahay anigii dadka caalamka oo dhanba sida ay ula yaabeen markay ogaadeen fadlan haddii aad muuqaalkan ka faa'iiday la wadaag asxaabtaada hoosna ugu yeer saaxiib leh iPhone si uu ogaado laakiin waa inuu lahaada iPhone 8 wixii ka dambeeyay hoos ugu yeer fadlan haddii uu leeyahay iPhone 8 wixii ka dambeeyay si uu buttonkan iyo sirtiisa u ogaado ugana faa'iideysto inta laga gaaray muuqaalka xiga ee idankii nabadgelyo